waxaanu maanta barnaamijkeena ku soo qaadan doonaa qaar ka mid ah xigmadii cajiibka ahaa ee laga diiwaangeliyay madaxweynihii hore ee dalka Zimbabwe Robert Mugabe. waa ninka yiri haddii aad maalin walba aroos taagan tahay haddana aad weli iskaabula tahay wax ma dhaantid howlka lagu aroosayo. sababta aad faqiir u tahay waa inaadan markuu roobku da'ay ka fikirin inaad wax beerato ee aad ka fikirto sidaad uun galmo u samayn lahayd. waan la yaabanahay wiilasha Afrikaanka ah waayo wiil saweyn ayaa gabar wuxuu ku oranayaa beebi la'aanta ma neefsan karo. haddii aad aragto lamaane Afrikaan ah oo bannaanka ku leersanayo kama ahan romantic ee korontada guriga ayaa maqan. haddii ay dawladda xirto dhammaan meheradaha make-upka lagu gado caruur badan ayaan hooyadood aqoonsadeen. waalidka Afrikaanka ah waa midka qura ee haddana inta ku dilo ku weydiinaya sababta aad la oysay. markaad xiriirkaaga qaaska ah ama qofka aad la sheekayso soo dhigto social media-ha dadku waxay sugayaan goorta aad kala hari doontaan in ka badan inta ay sugayaan soo laabashada Nabi Ciise. waa necbahay wiilasha aan baabuurka wadan waxaa sidaas tiri gabar xitaa aan baaskiil wadan. aroosku waa meel ay isugu yimaadaan dad badan oo laba ka mid ah ay ka fakaraysa galmo halka inta soo hartana ay ka fakarayso cunno. dumarku waxay qiyaamaan militariga jiidda hore fadhiya ee bambooyinka iyo hubka culus sitaa ee sidaad ugu malaysay adigoo laptop sitay inaysan ku qiyaami karin. dadka kubadda cagta daawado waa kuwo qosol leh waxaad arkaysaa mid leh intaasoo milyan ayaan ciyaaryahan kala soo baxnay haddana ma haysto lacag oo caawa ku caasheeyo. dhibaatooyinka Afrikaanka haysta waxaa ka mid ah haddii la yiraahdo qofna bannaanka uma soo bixi karo oo waa bandow qof walba bannaanka ayuu u soo baxayaa si uu u eego cidda soo baxday. wiilka saaxiibka ah haddii aad barto gabadha aad la sheekaysato waxay la mid tahay adigoo waraabe hilib siiyey. adigu maxaad ka xusuustaa xigmadii Robert Mugabe? fadlan qaybta hoose ee commentiga noogu raab.